arrin yar baan rabaa inaan baraarujiyo oo bariyahan socotay maalmihii la soo dhaafay waad ogeydeen dhibkii lixaadda lahaa ee muslimiinta ku gaadhay meeshii la odhan jiray ex control afgooy dhibaatada weyn markay dhacday baraha bulshada ee wax lagu qoro khaasatan kanaalkayga bidaayat sabiil waxaan soo dhigay hadal hawshaa ku saabsanaa hadalkaasoo xambaarsanaa cambaarayn iyo eedayn iyo ka bari noqosho wixii meesha ka dhacay xaggana uusan ahayn wax gebi ahaanba la taageeri karo hawshaas yaan soo dhigay hawshaasi waa la kala qaato nin walba afku doono ku turjuntaano carabi baan ku soo dhigay maqaalka asalkiisu wadaad baa qoray laakiin anugu waa u bogay markaan u bogay baan soo qado meesha soo geli maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey qolyo baryahan dambe ay nacfi ka galay baraha bulshada oo commenti aad u raadiya iyo in wax loo sheergarayo ama like loo ila dawarsi waxaa bilowda baryahan casri ah nin meesha ka istaago manag allah yidhaahda baynu arki jiray hadda waxaa ilma adeerayaa like iyo saara subscribe iyo dhaha ii sheergareeya ilaahay baa idinku dhaarshay qolyo waxaa yimid ducaynhaya ninkii wax ii sheergareeya ama sii dira ama like saara dembigiisa allaha dhaafo jannada alla hageeyo qolyo ku dhaarin baa yimid baasha marka dhib badan bay horta inagu haysaa hadda waxa iga khuseeya waxaa weeye waxaa xigay nimanaan u malayn inay Soomaali yihiin yaa waxay soo dhigeen soo qoreen ayagoo oranaya xasan xuseen aadan oo yiri wixii gas control ka dhacay waa sax dadkii meesha ku dhamaa oo dhan waxay ahaayeen gaali iyo murtadiin afar mooye adu beenta sidii loo qurxiyo bulu fiirsada waxaan caawa rabaa inaan idin sheego inuu been yahay shuqul aanan ku lahay qoliyaha beenalayaasha ee rabad in mar ay kaarka ka gubaan mar bay taladu ka halowdaa mar intay wax qoraan ba waxay soo saaraan sawir cusub oo isla bilahan ah markaasuu xumoodayaa ninka caamayga ama ninka muslimkeen ka fiirsanin xumoodayaa hawl dhab ah ilaa sawirkii wadaadkii ayay cusbaaba saaran marna way ka halowdaayo xaajo cusub oo hadda waxay saaraan sawir 20 sano ka hor ama 15 sano ka hor ninkan hadda yidhi wadaadku egas control afgooy wixii ka dhacay buu taageeray way ka halowdo wuxuu soo saaray sawir ah 2010 miyahay 10 sano ka hor sawir haabuu soo saaray arinta waa been bari baan ka ahay shuqul kuma lihi yaan lay beentaan lagu kadsoomin ma sheegano kuma mashquul dhaqan oo ma hawsha inaan ku mashquul laakiin waxaan arkay masaajidka markaan ka baxo ku lay qabtay sheekhu ma waalatay maxaa gas control loo taageertay wadaad saaxiibana ayo bambaasa ka yimid oo qiimo badan oday ah baa igu daraa quruuxa waa waan ka dhadhicin waay sawirka waa saaran sheekh adoo dagaalamaya baa hawsha waxaas beewayay waxa kale ogaataan laamaha amniga dalka Kenya warka intii la gaarsiiyay oo laga dhaadhiciyay bay ila soo xiriireen su'aalo iga weydiiyeen dib badan baan kala kulmay hawsha beenta ka waantooba iska ilaaliya dadka wadana adaa taqaanaan waaniyo wax u sheega ninkii hadaydan garanayna sharkooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga xijaabo intaasaan rabay inaan ku baraarujiyo wallahu a'lam